سؤال شو أصلاً شيخ ويل يقبض ولا لا وأي هويو أبو ولا دلين دي أي كلا سنستان وما حي حكم كود سلامات المها دشينا محو نقول يا حكم كيسو يعني قبض حي ودا الشيء قبض ولا الكيد ولا دشيء أسأل الله العفو والعافية وفضيحة وأرن آذف والحن ويل قبضي ولا شيء أهيدا إنو إلى اليوم عردي هذا الدفاع أهي أيدي حمان كسميني ووحاد فالحن الزنا وين أفسي سنتا الزنا دو يدو الزنا أبي هذانا كلا علوس تاعي inaad dadka maxaarimta ah oo maxramka ku ah inaad xumaan ku samayso ama zina la samaysay way ka culus tahay ajnabi markaad zinada ku samayso saas daradeed baa xadiis culimada qaarkood ay leeyihiin daciif qaarna xoojinayaan wuxuu leeyahay man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu haweeney maxram u ah ruuxii ka zinaysto ku dhaca dila xadiidkaasi waa daciif ay culimadu leeyihiin laakiin waxay ku xoojinayaan xadiid kaloo sugan oo baraa ibnu caazib saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu leeyahay adeerkay alxaarith ibnu camr la dhihi jiray oo calan wata ciidan wata calanna u taagan yahay ayaan arkay buu yidhi markaasaa waxaan idhi buu yidhi xaggeed ku socotaan wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigaa wuxuu ii diray nin aabbihii xaaskii uu ka dhintay ama xaaskii aabbihii nin guursaday oo xaasaystay ayuu nebigu ii diray inaan soo dilo dhaqanay jaahiligii lahaan jireen waay oo markuu hooyadii ma aha waa islaanta aabihii qabo oo Soomaalida qaarna eedo u taqaan qaana aaya u taqaan islaantii iyada ahayd buu iska guursaday oo xaasaystay islaamka ka hor jaahiliyadii bay lahaan jireen waa ka quraanka Ilaahay ku sheegay wala tankihu ma nakaha aabaa'ukum min an-nisaa illa ma qad salaf ninkaasi marka waxa weeye aayadii ama eedadii xaasaystay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri soo dila qorta loo caseeyo waxay tilmaamaysaa marka dadka maxaarimta ah zinadoodu inay ka culus tahay zinada kale la mid ma bal iska badhaafay dariskaaga xaaskiisa inaad xumaan ku samayso way ka dambi weyn tahay cidaan daris kula ahayn inaad xumaan ku samayso حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحان ود النبي قويدي يقول يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله رسولك إلهي الذنب لك أقوين إلهي أكتس النبي يقول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله إن عيد لم إذا القصة ما يسوء أسقوك أبوري إن عيد كلا لا عبد ذنبي جيك وحجاب عن ربوري أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ilmahaaga inaad disho adigoo ka baqaya inuu wax kula cuno dambigee saddexayaan ku yiri buuri an tuzaniya khalilata jarika ibn nabi sallallahu alayhi wasallam dariskaaga xaaskiisa inaad ka zinaysato baa dambiga saddexaad ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka dunuubtu iyadoo zina ay si kala culusta marka waa faaxishadeedii waa in muxuu ahay walaashii iyo dadkii qaraabadaha dadkaasi uu ku noqday laakiin ansha xumada iyo dhaqan xumada waayahan soo korodhay bay ka mid tahay oo waliba ay keenayso yani thaqafooyinkii ummadahan kale ku dhex korayno iyo akhlaaq xumada iyo miidiyahan fasaadsan taamarkii inta looga tago ilmaha see la yeelayaa way ilmuhu muxuu noqonayaa ilmuhu waa ilmo garaca ilmuhu waa waladu zina hooyadii buuna ku abtirsan aabba ma laha laakiin gabadha dhashay
ayaa hooye u ah xagga iyo abtiyaashiina uu aadi sideedabana carruurta sharci darrada ku dhalatay waa sidaa aabba ma laha laakiin xagga hooyey aadayaan hooyaa hooye u ah carruurta kale ay dhasho bay walaalo yihiin iyada walaalaheed abtiyaal bay u yihiin wahaakada xaggaasuu aadaya laakiin kan biyaha xaaraanta meesha ku daadiyey iyo ilmahaasi wax xidhiidha kama dhexeeyo oo muxuu ahaayey ajnabi bay kala yihiin wallahu aclam